ilaaliya ammaanada ummadda iyo hantida qaranka aaminsan kula shaqeeya qarannimo oo ka fog qabyaaladda iyo qof jeclaysi danta guud ka hormariya midda gaarka ah oo heegan u ah howlaha qaranka aaminsan midnimada dhuleed ee dalkeena iyo wadajirka ummadeed ee dadkeena ilaaliya madaxbannaanida dalkeena iyo qabka dadkeena oo gol kaliya iskaashi ku dhisan wada shaqeyn iyo is-ixtiraam kala dhexeeya caalamka intiisa kale xogaala oo awood u leh joogtaynta isbedelada socda ee dalka ka hana qaaday 5 sano ee la soo dhaafay la jira shacabka oo dareemaya danaha iyo duruufaha bulshada daryeela danyarta iyo daljirka heeganka ku ah jiidaha hore difaaca qaranka ilaaliya xuquuqda golayaasha dawladda shaqaalaha iyo adeegayaasha qaranka haddaba anigoo ka duulaya baahida hogaamineed ee dalkayga iyo dadkayga tixgelinaya codsiga shacabka Soomaaliyeed ayaan waxaan go'aansaday inaan mar kale isu sharaxo xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si aan u sii socodsiino isbedelka ka socda dalka saas darteed waxaan halkaan aan ka soo jeedinayaa ama aan uga jeedinayaa laba baaq oo muhiim ah baaqa koowaad waxaan u dirayaa xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal waxaan ka codsanayaa inay codkooda isiyaan oo aan wadajir ugu guuleysano una hormarino dalkeena iyo dadkeena si aan u sii socodsiino isbedel doonka ka soo bilowday 8 Febraayo 2017 baaqa labaad waxaan u dirayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaana si qadarin leh aan uga codsanayaa inay mar kale ugu garab istaagaan dib u doorasho ku dhisan danta shacabka xubin kasta oo ka mid ah baarlamaankeena waxay matashaa ku dhawaad 60,000 oo shacab ah waxaan alle uga baryaynaa in dalkeena uu ku manaysto nabad waarta iyo nolol wanaagsan waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum